السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كله أقير سنة ونحسن هاي وننيجب سنة هاي هذا هاي شعب كسو جيدا مقدشو كل سومالي وودا قير سنة لكن ذكرين مقدشو قاس إيجار أما سبيشل بيوتا هاي وهي عودة هاي ونكحون هاي بقول كيف بقول آدي هذا نقحون كل نفس ذائقة الموت وايه هرتو نف والبنا أما غرح كل ما أما سكر هؤلاء ما تي وحون كليل هو هوي قف والبن ملقا هو من دون ما إنه دلمي دون تنا وحي مركا إلهي وقدري تاوح اللي يابل معهن لكن ضدك سوماليات حيابها عجيب كي غير اللي وحوي أو عجيب كأ taas hanoo dambeysay horta waxaan rabaa inaan wax yar idin kala wadaago haddaad ogtihiin wixii si u dhaceen iyo goobihii la beegsaday marka saxaafad xora ma jirto waa la xiran dhammaantood mana boonbooni karaan leeyahay waxyaabaha waddanka ka dhaca marka waxaan filayaa horta intii dhaawac ah si wada jir ah horta inaan ugu duceyno intaanan faahfaahinta barnaamijkeena hadda gelin intii dhaawaca horta in ilaahay u naxariisto inaan u duceysaan rabaa intii dhimatana Allah u naxariisto intii dhaawacna dabcan Allah u naxariista laakiin ilaahay degdeg ha ku shaafiyo isbitaalada magaalada Muqdisho loola ordi caawa si degdeg ah marka shabaabku way ka hadleen qaraxa warbaahinta xorta ee localka maxalliga ah oo taqaanana waa dabcan way ka hadleen kooxda shabaab ayaa gaari xamuul ah hada ma aha raka gaari oo ma ahan BL ma aha gaari karim ma aha saf ma aha gaari yar ma ahan oo raaxa waa gaari xamuul ah ayay qarax ka soo buuxiyeen waxaana lagu dhuftay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sida loogu dhuftay goobta qaraxa laakiin gaariga aniga waxaan eegay labada website kuwa maxalliga ah ee dalka ka jira iyaga laftirkoodana kuwooda waa eegay sida wax u qoreen marka isbarbardhig waxa ii soo baxay in gaari xamuul ah laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa ayay ku dhufteen maqaaxida Mansuur iyo hotel Maka al-Mukarrama intii taqaan anigu dabcan gadaasheeda laga uumay ama laga sameeyay ayay ku dhufteen marka ujeedka shabaab wuxuu ahaa inaanan qof nool meesha ka baxsan ujeedada shabaab ee gaariga xamuulka ee u dhuftay waxay tahay qof meeshaas jooga inuusan baxsanin ay hadafkooda ahaa waxay ku guuleysteen hadda shabaabku inay gudaha u galaan Maka al-Mukarrama iyo maqaaxida Mansuur labadaas buu qorayn inay gudaha ugu jiraan marka mid bay si fiican ugu jiraan lama garan karo ilaa hadda maadaama update-ka in siinay uu yahay mid haatan ah minid ah warbaahinta maxalliga ah waxay leeyihiin waxay ku jiraan maqaaxida Mansuur ahna hotel eeg iyaguna website-yadooda waxay ku soo qorteen waxaan ku jirnaa hotelka Maka al-Mukarrama iyo website qaar oo maxalli ahna way ku jiraan laakiin midkeen noqotaba way iska soo baxaysaa hotelkaas waxay u badan tahay ana aragtideeda in Mansuur ay ku jiraan maqaaxi iyo hotel ido Mansuur meesha la yiraahdo dan wax yar in kaga sheego ma ahan goob hotel oo weyn laakiin waa maqaaxid weyn oo hotelna leh wararka qaarna waxay leeyihiin Maka al-Mukarrama waxba isma dhaamaan oo waa meel laba meel oo isu dhagan waa labaas farood ah oo wadada Maka al-Mukarrama ku yaala ragii qaraxa labaad meesha ka dhacana waa idin kaga sheekeynaa qaraxi koowaad markay fuliyeen mishinkooda qaraxi koowaad ay ku guuleysteen durba rag hubeysan oo ka fog goobta because of waxay ku xiran tahay mar walba qarax markuu dhacaayo tanka qaraxa ay ragga hubeysan ku xiran yihiin meesha ay joogaan haddii qaraxa kaarib yahay ragga hubeysan kama dheera 400 mitir kama dheera sababtoo iyaga laftirkooda in wax gaaraan ma raba dhibaato uma rabaan naftooda iyagoo aan ujeedka iyo hadafka ay lahaayeen isa gaaran marka maadaama gaarigan gaari xamuul ah uu yahay gaari weyn oo xamuula bira laga soo buuxiyay iyagu way ka fogaayeen oo taleex bay joogeen la leeyahay ragga dad goob joogayaal sida ay xaqiijiyeen taleex markii qaraxa dhacay oo gurihii qaar soo dumeen oo jingadii soo daateen oo dhagaxaanta soo daadatay dadka naxeen ayagoo ordaay ilaa iyo 6 nin oo ordaysa ayaa taleex martaa la leeyahay oo Maka al-Mukarrama u socotay waxay ka baqaayeen
in qaraxa uu iyaga saameeyo markii la isku dhaxyaacay ka faa'iideystaan iyaga hadda hotelkaas ayay ku jiraan oo waxay tooganayaan dadkii meesha ku jiray dadka meesha ku jiray yihiin marka oo la tooganaya hadda oo geeridooda hadda nala soo sheegayo waxay u badan yihiin percentage 80 marka sidaan ku qiyaas hadda ila xoogaal ay leeyihiin waxay u badan yihiin 80% dad shacab ah iyagu waxay aaminsan yihiin oo cajiib ah waana waasax way ku jiraan saraakiil markii lagu leeyahay saraakiil dawladda ah ayaa ku jirta hotelkaas taas macnaheedu ma in adigu waxa durba maskaxda ku soo dhacay xildhibaano ama wasiiro ama madax kale laakiin dawladdu laamaha kala duwan ee dawladda ama lakabiyada kala duwan ee hay'adaha dawladdu way ka badan tahay inta waa in la xisaabin karo hotelka waxa ku jira agaasimayaal maaliyadeed agaasimayaal ciyaaro agaasimayaal amni madax dawladeed kaliya madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo xildhibaan iyo wasiir kaliya ma aha dawladda lagu sheegayo marka hotelkaas bay degan yihiin waana wadada kaliya safe oo arkaan haddana dadka la tooganayo way ku jiraan ilaahay ka badbaadiyay inta dhimata Allah u naxariisto inta dhaawacana dabcan ilaahay ha shaafiyo marka hadda ciidankii qoliyoohii shabaab ee soo weerar goobta waxay si toogasho ah ku wadaan dadka hotelki jiifay oo isugu jiray shacab iyo saraakiil dawladeed ayay hadda tooganayaan ciidamada amniga ee Blaze-ka dawladda Soomaaliyana waxay taagiin banaanka hotelka Maka al-Mukarrama iyo maqaaxida Mansuur si ay raggaas ula dagaalamaan ragga halkaas galayna waxay wataan qoryaha noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale gacmeedyo ay ku tuurayaan ciidanka Blaze-ka ee raba in halkaas ay ka soo saaraan ragga shabaabka halkaas galay iyadoo xaaladda halkaas maraysa ayaa haddana qarax kale labaad oo weyn la maqlay markale oo isla goobta ah waxaan la cadeyn karin in ragga gudaha ku jira ay soo tuureen qaraxa iyo in gaari meesha ku sii diyaarsanaan mar horeba ay iyagu qarxiyeen taasaan la cadeyn karin waxa yaaba marka u soo laabto shabaabku dabcan markay qarax sameeyaan noocan ah missionkii oo socdo warbaahinta way la hadlaan oo tooda ha ugu badnaatay way ka sheekeeyaan laakiin sorry garan lahada shabaabku qadka wax yarayga xumaaday shabaabku waxaan rabaa Soomaaliyeey cawada waan daalnay waa baaba'nay waan dhimanay weesa ma dhoorno qarax ma dhinno geeri ma dhinno tacsi ma dhinno murug ma dhinno walbahar ma dhinno walwal ma dhinno waxaan rabaa annagu isku duuban ayaan tala wadaagi karnaa laakiin taladaasi hadii ay la dhaqan gelinaynin taladaasi hadii qofka Soomaaliga wax weyn u ahayn intaan kala taaganahay farmaajo nin fiicanay nin xun waay annaga dhamaanay kuwa hadda dhintay ee aan soo duugayna barito waxay isugu jiraan kuwa farmaajo difaaci jiray iyo kuwa farmaajo ka soo horjeeday muhiimadda Soomaalinimada waaye wax uu farmaajo dalkan ka qaban kara ma jiro waxa dadka ruwaayadaha lagu sheekeynaa hal iska daayo war farmaajo kuma difaaci karo war dalkan adaa leh awood ma laha waxaan rabnaa gobolka Yariisow ninka gudoomiyaha gobolka ah heesiisa u shidan marqaankiisa u shidan farmaajo safarkiisa u shidan baashaalkiisa u shidan labadana caruurtooda ma joogan magaalada Muqdisho dadka leh magaalada Muqdisho ee xudurtooda ku duugan tahay waa naga habeen walba murug lama joogi karno habeen walba walbahaar lama joogi karno habeen walba walaac la kuma noolaan karno waxaan rabnaa hal talo war fiiriya Muqdisho waxay isku darsatay canshuur in laga qaado waxay isku darsatay dhiig maalin walba inuu ku daato waxay isku darsatay shacabkooda in la gumaado waxay isku darsatay in xabsi ay ku noolaadaan dadku markay kibraan qatar noqdaan ee lacag yeeshaan ilaahay waa imtixaamaa annaga imtixaankeena waa mid nagu kooban canshuurtu way kugu kooban tahay qaraxa waa kugu kooban yahay madaxda jiifta waa kugu kooban tahay inaan lees daryeelin waa kugu kooban tahay inaan war lagu heen waa kugu kooban tahay yaa ku soo inkaaray reer Muqdisho yaa soo inkaaray halkeed maxaa qaldan yaa ii sheegi kara war Yariisow hadda aniga cidna ka baqi maay kama xishoonaye Cabdiraxmaan Usmaan Yariisow gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waa ninkii Facebookiisa ku soo qoraayay Daahir Calasow ayaan ka badiyay oo screenshot qoraaladiis ka soo qaaday waay Daahir Calasow iyo aniga maxkamadeeda anaa ku guuleystay ninka dhahaayay oo screenshot ka soo qaadayay oo Daahir Calasow Facebookiisa wuxuu ku soo qoray aan habeen iyo maalin ka seexanay waa ninkaas ma ninkaas 3 milyan iyo bar qofood hogaamin kara marka anoo igu cudi anana ka bilaabayo daleeshiis hatta shakhsi ahaan ma matali kara hatta bulsho gobolka Banaadir inuu hogaamiyo Yariisow
dadka hadda dhintana he don't care ani iweydii shaqadiisa ma caruurta silanna degin jaamacado ka bixiya dadka dhimanaya caruurtooda yiriiso caruurta kuma jirto yiriiso caruurta London ay jaamacada ka dhigtaan markay qalin jibinayaanna canshuurtaadu ku baxaa uga dhiiba jaamacada sawir uu kula soo galaa هذا عبد الرحمن عمر يريسو دتك عوض الأمانة he don't care حتى كل شيء شقدي سماها لكن أديك واحد أنا قدومي قبل كبنادر متجرو لين ما يقف كلا سنة أو هذا الكرام قاعد مقدش يجوجا حرق جواه لكن حق إن لقاه لو واحد إلهي نسميه قابك من هنا قابك حق أبو سمي سماها إلا أنت واحد من يوسف معها انقرح القول أنت واحد من يوسف معها قرح بومبون ندرس كليهين باريس هلسينكو كدعي كرا روشكو كدعي كرا لندن كدعي كرا ميل walba كدعي كرا laakiin madaxdaadu waa inay ogtahay mas'uuliyadda adiga ay ku hayaan qiimaha leedahay waa dhimato lagu soo duugo maxaa tahay gudoomiyaha gobolka Banaadir muxuu yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir muxuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ka ogyahay wiilasha adiga kula mid ah London ay u joogan oo isaga u dhalay ayuu jaamacad ka baxsadaa damiirka maxaa idin ka qaaday farmaajo caruurtiisa may Mareykan degan Buffalo isaga xaaskiisana diyaarad ka mid degtaan mar haddii kursiga iyo hadafka la gaaro adiga lagu ma jeclo ogow nacam lay xun baa tahay ninka dhaliishana room waa dhaliishan haduu dhinto waa xaqaas ahlu janno waaye ninka og asarunta haduu dhinto laakiin kan isdaba eeg waxaan nacas u aqaana oo doqon u aqaana oo damiir laawo u aqaana aniga kulay ma karan karo dadka gobolada Soomaaliya ka yimaaday aniga waxa kala duwanahay haddaan muqdisho nahay dhiig kala nagu jiro dadka muqdisho wada qarax baa dhacday la waa naxeena magaaladeedii waay dadkayga waa la soo koray dugsi la soo dhigtay iskuul la soo bartay waay markuu qarax dhaco aniga waa isaameynay aniga iyo dadka muqdisho ku dhashay oo inta ku jira way saameysaa ninna gobolo ka yimid xisaabta ba dib isugu laabtay dhiig yeesha ninna gobolo ka yimid magaaladu jooga hadduu qarax dhacna wuxuu soo qoraa nabad iyo nolol he don't care wax dhacay wadankan damiirkiisa ma ahanba ilaahay uma sameyn qaabkaas nin gobol ka yimid tuulo fog ka yimid oo muqdisho degan oo fila Soomaaliya mishaar ka cuno haddii wiilasheena qarax ku dhamaadaan iyo gabdhaheena isaga nabad iyo nolol soo qoraa because wuxuu haystaa hadafkiisi ayuu haystaa nin ay qaraabo yihiin ama nin uu jecel yahay kursi u haayo jaadkiisa iyo cuntadiisa iyo jiifkiisa waa loo saxay bullet proof oo wata damiirkiina kiciya aniga runta idin sheegaa laakiin dadka dhaqan gillaa idinka waaye dadka filada ku jiro gobolay ka yimaadeen ama ceelbuur ha noqdo ama garab caabud waa ha noqdo ama ceeler ha noqdo meesha doon ha noqdo anigu muqdisho igu cid ah ninka nabad iyo nolol soo qoraay waa inaan damiir lahayn waaye at least damiir ma laha waa inaad la dagaashaan ninka noocaasa wiilashaadii dhinto haddii hooyada dhiman oo hadduu aabaha dhiman hadduu wiilkaaga dhiman qaraabada iyo deriskaaga dhinteen nin gobolka yimid oo koraad ka imaadana wuxuu ku leeyahay nabad iyo nolol damiirka ilaahay idinka dilay dad dhiifoona ahaan jirteen muqdisho war wax aad tartaan iyo waxaad gudaan male waxaan niilgu xantaa dadka ugu doqonsan Soomaaliya tihiin hadda hal example ma ku siiyaa oo aan bulshadaas aan hadda warka u wadana aysan ku xumeen aniga aan ila saxsan tahay laakiin dadnimada ku jirto haddaan cawada Kismaayo ka degta anigu Cabduqaadir Boos ah si fiican ii dhageyso dadku waxa idin sheegay xumaan ma aha damiir ina yeelan waa ogaa dad dhigil ina tihiin qof wax idin sheegay ama wax idin dareys idin xasuusin baa u baahantiin haddaan Kismaayo taga cawada calanley aan guri ka ijaarto uu qarax Kismaayo ka dhaco aniga waa qofka doolka ah kow ana la imaanaa aniga haddii la imaado dood ma qabo sababtoo magaalada ana ku cusub xaq waxa uu leeyahay maadaama aad dambiile ahayn in la ibaarto reer Kismaayo baliiska nabad sugidda Kismaayo wali ma tagin waa ogahay haddaan garow tago ciidana ii imaanaya hadduu qarax ka dhaco adaa hawiye ah daceebna ma aha taa ceeb ma aha ana qalad uma arko taas adaa hawiye magaalada nabada eed garow ii qardho ama Kismaayo nabada eed adaa nagu soo biirtay waxaan maxaa ka ogtahay marka ma ka ogi dambi leegu ma hayo waa iska soo baxaa laakiin waa la qabtay kullatiga laga qabtay idinka waxa ugu duwantiin bulshadaas ay idin sheegaa ugu damiir xuntihiin oo ugu doqonsantiin ay idin sheegaa marka laba isku darsateen iyagiyo dool ah ayay muqdisho ku joogan way ku kor jeesayaan iska dhaaf inaad ka qabatide isla adiga inta ka sii qabanayaan yaa ka dambeey qarax ku leeyihiin adiga yaa magaaladaada lagu dhaxaystaa adaa gumis prisoner ah fiiri haddaan hadashidna qabiilista taadi haddaad dhimatidna waa lagu kor jeesaa nabad in nolol lagu soo qoraa iyo farmaajo ilaaha soo dir waa run
عقلي سوكو مسين هو إذا يا أباه ما أنت إيه هوتيل مكة المكرمة مقاهي مسور كل ما دان أديك أنا حدات سوق قرت وروح عن مقدسة دت كده حالستان قبيليستا تالو ليه دم بياب لوسي قليبة حدات هذا شنو دمبيلا تاي هدا أمسن ولا قدلا أديك نقول صومالي كلمة تيجي كرت بقول كي بس عشان دتك إداونا يقار ودي الدنيا ركتدي لك والله وصح دتك إداونا يا انت يقول ديق اهي اوغول انت يقول ديق اهنا waxay imalaya qabiilista aniga mi ku muqdisho inta ka heesataan aniga ima heesan kartaan ana runtan ku sheega ma dadkaygu dhamaana dayus ma dayus jana ma gale dadkaygu dhamaana ma aamusa amsa nabad in la soo qoraa ma soo qoray dadka anay la sheen dadkan ana la dhashay dadkan anay isku meel ku dhalana anay dhibayaan dhigooda anaana damqana adi ma damqaniis bulud buruuf iyo marduufkaaga jaadka iyo naagtaada iyo cuntadaada adeerka ama وزير هذا أم حلبان هذا كو إمادة مقالة ده أما مدحوين هذا إساقا عنتو كسي مدحتويس وما دافت أنا أمرك وحاجة قدي هدان دولة دوح كشاق قبيليستا أصوما أديك لك روكا هدان تواي هيري دو قرح دعو مقالة ده مقدشو الشباب كان مدى أشيقا كل أنيقو سياسة دو دي باب كودة مقالو قفك مركو هدف الدين ليه هي هدف الدين مركو ليه هي أنا هدف دين موتو أركتيا وتا أنا الدين تيد أنا قاس إيتا عشان تيد الصلاة صدقة الإنسان كي حج كي إلهي واجب يقدر أنا ما كسر بحال يجو سياسة معها وحود ودينه وتان أما هأقل دناته أما هأصح سناته أنا أركت باب كود مقالو because of ووح أو حبك بدلي كرن ووح عن قبيل في قبيل كمان ما يكرو معنا أنا نكرو قبيل معها كوح أنا قانو أو لها اللي كرا تليفون معها أركتيا وتان إلا أركتو إكجاران ودمانين أي تاجين وحالا ما جرت أي أكتود لكن هو شيء هل تلان سينا أيجنا وما أنت آخر اللي ويدين دونه ما ها أفكار فرن أما دقة قداوة درتو وش شيء ويس ولا يالو الكاميرا سوق عشان طبعا واحد إذا كسكورة بدل ملها وكور هيسان وحال كان كشيء قوي لكن تنوع طلق كوح كستنا تلق وبانتاي قوميد والبنا تلق وبانتاي قبيلي قف والبنا تلق وباهية حرم الدولة وأجشان وواحد أنا قلنا قانو لو قالوا إسديدناتين لكن مركات سوق عشان جوب هوتيل حداد جبر عرفتان ودي لسان حداد أضاء عرفتان ودي لسان حداد عنق عرفتان ودي وأوجه سراكيل دولة إني مش كجران إذنكو هدف كينية هاي كوبات صدق جيرده ولا ليالو أدونك ولا ببري شباب سوري كل قف كدمنا يا شباب وحن والجيه شين دونا مالين سومالنا جوجل بيسوي ما دونتا مالين وحي آد نوغو sheekayso saraakiil ciidan baa dilna anagoo shabaab ah lama yaabi doono waa isdiidna kartaan idink laakiin qof maskiina oo hunguri magaalada baahi dad badan waxayse sheegi karnaa jiro magaaladu ma laha ila dhaqaalo oo qofku wax ka soo xariisan karo lacagtina dawladda yaa gacanta ku hayso ma jirto meel kale loo shaqaysan karo shirkaduhu way wada xiran yihiin dad bay u xiran yihiin dadku ma wada dhimanayaan waa in hoteelada aad weeraraysaan qaar baa ka shaqeeya manager ka ah ilaala ka ah wax walba ka ah taasi micnaheedu ma in qofkan uu ku xad gudbay diinta taasi micnaheedu ma qofkan inuu ka muteysan yahay inaad dishid waa taqaana marka goob soo gashaan dadka shacabka ah iyo dadka dawladda u shaqeeya kala saara oo dadka wareysta gangiga Mexico dadka waa wareysa markay qabtaan ma micnaheedu dawladda ku jirtiin ama dadka xataa way feeri shabaabka waxa uu sheegay dadkan Soomaaliyada Muqdisho joogay hoteelada ay ku dishaan والله بالله دولد waxay u haysa malaha hunguriga u geey dadka hunguri iyo dil ha isugu darinaa ilaa baan ku darshay taasna waa digniin aan idin soo jeedinayo waay oo walaaltinimo leh waay oo Soomaalinimo leh waay dadkan meel ay aadaan malaha hadii la dhaw wiil Soomaaliyeed oo suuq xoolaha iska jooga bakaar iska joogo hotel Maka Al Mukarrama iga shaqeeyay maqaayada Masuur muxuu intuu keenaa adib lacag siinay maya hotelkaas ka shaqeeyay waa imaad waadish adib is weydiisay marka aakhir in wax la is weydiinayo xisaab jirtii soo arjiraan وردتك نوع البيبيين وردتك مقصود جوجا حتى الشركة هان هرمود ي نيشن ي تيليكوم ي كل أيجو حرنتها قبيل يجربيشن يا جريرة الاسكوجية دتك ما كشقيستان ما هيستان دتك الدولة وشقيسة ما هيستان دتك قار وح قانون الدبد أو الجنوب بيلاي ملها دتك وسلع سيين وردتكم مقصود جو ورفات سيين وردتكم جوهر جو الدولة وشقيا لما تابتو وركون بلدوين جو الدولة وشقيا لما تابتو وركون بوصاص جو الدولة وكشقيسة لما تابتو كون كسماي كل دولة جبلاني آدم قفتها بتملك كون مقدشية إنكاري
kuwan muqdisho calaamad ma haysato ma dambi bay galeen ma ilaaha u carood an waa garan laha hadday hadlaana dambiilayaal waaye haddana waa imtixaan kale iyo dir kale u yaala meela dareysantiin ficilka gudaha waxaan ka dareemaya aniga mise anigu waa keligay waalan isoo ila qabtaan waxaan haddaan keligay waalanahay kullee waa la ciishan karaane dadka muqdisho fursado shaqana ma haystaan cid walbana ugu daran tahay eeg dowlad Soomaaliyeed oo muqdisho ka jirta oo ku rabin inaysan jirin hal example iga qaado cawada dib damana kugu sharaxin maayo wasiirka amniga feer wasiirka amniga shaqadu hay maxay tahay waa shaqada shacabka inuu ilaaliyo Turkiga ku raaxaysanaya cawada shirkadii baasaboorka immigration Soomaaliya wasiirka amniga hoos imaada Turkiga u fadhiya dhiilka hal weyneey ama yaala weynina laga heshiino yaasi koofi in gurigooda oo cad wax intii wax kala shaqadooda maaha wasiir amniga la haysta xamar amnigeeda in la sugo hadii la rabo wasiirka amniga wasiirka gaashaandhiga taliye ku-xigeenka nabad sugidda taliyaha booliska gobolka Banaadir taliyaha qaybta degmo kasta taliye leedahay gudoomiye leedahay aw ahsan amni ma sugi karaan hal wada ma kala ma karo xataa ma sugi karaan I believe that wallahi adiga inaan waa ka xishoonay laakiin aniga waxaan ku hubaa horta in la sugo waxa ka horeys in loo dadaalo xataa weligood kuma nimay hooyo isku daalin run waxa la yiri hadal war la qaba Soomaalidu waxay tiraahdaa war la qaba xiisa ma leh waxa wada ogtiin laakiin kulligiin qof ficil sameyn kara inuu kuma jiro kulligiin qof ficil sameyn kara inuu kuma jiro feer xildhibaankii ugu dambeeyay boqorre oo maalin kaaran lagu dilay hubkiisa dawladda ka qaaday waa loo imaado waa la dilay eeshaan xildhibaanna kuma nabad galo shacabna kuma nabad galaan horta feeri waxaan ku macsalaameynaa inuusan nabad Soomaali ka soo soconba dawladdan iyo wax lamid ah soo wadi karin iyo kuwa soo socda xataa halka wado taliye nabad sugid taliye booliska Soomaaliyeed taliye ciidanka xoogga Soomaaliyeed taliye booliska gobolka Banaadir taliye qaybta taliye nabad sugid ku xigeenkii wixii dhan hal wado oo Maka al-Mukarrama leen amnigooda soo kar adigana waxa ku fikiray Soomaaliya amnigooda sugayaan bakaara ma laga yaqaan dawlad hadda ku sheegay Carafaad Tawfiiq Aymis suuq xoolaha Kaaraan dawlad ma ka jirtaba haday aaminaysan dadka qolba joogto waa iska sariin qaar qof kaarta weydii Maka al-Mukarrama wadada dawlad ayda xataa kama jir leene waa wadada ay isticmaalaan isku maraan waa hal wada waaye iyada dhan 5 kilomitir ma dhama taas ay amnigeeda sugi laayeen taas cawada shabaabka intee soo galay wax ku dilayaan anigu laakiin waliga ma dhacin dawlad Soomaaliya shabaab iska celin karta taas waliga iguma soo dhicin muhiimadda hadalkayga ku soo gabagabeynaya walba hadaad qarax iska qabi karnaa oo dawladdan tuugada ciyaar suuqyada ah iska qabi karnaa dadka magaalada la jooga ee soo qoraya nabad iyo nolol ee korkaaga ku cunaya jaad iyo sigaar iyo balaayo ku raaxaysanaya ee nabad iyo nolol si bariiskooda si socdo maskaxda ka haysta adigu waa dhiban tahay kaas u istaagay iska celi horto kaas waa nin faca qora mootee ninka nabad iyo nolol soo qoray bal eeg oo shan ciwaan uu leeyahay nabad iyo nolol ma in cawada anagoo life ku jirno dadkeen lagu laayo Maka al-Mukarrama nabad iyo nolol ah nabad iyo nolol ma waxa ah madaxweynaha maalin walba inuu iska raaxaysto Qatar aad Burundi aad Djibouti aad Ethiopia aad inta ka dhac Dooxa ka dhac balaayo ka dhac oo safaradiis iska sawato safarada waagi oo murashax intuu xaraanta la aha maantana xalaasha la ah kanaalka Ethiopia la xiriir leeyahay oo soo fatahmay waxyaabaha farmaajo markaa saas u fiiris ka arkays gudaha intaad arkayna ka badan waa tuug beenlow ah oo hatta ma xisho dadkiiska ma xisho khayrana waa noocaas oo kale waa wasiirka amniga waa ka sii liitaa gobolka Banaadir waa kan ugu liita waa markay ciyaalkiisu ay qalan jibinayaan ayuu lacagta canshuurtaada qaataa halkaas uu tagaa beyle waa u jeed darad beyle wasiir beyle suudo watay nin malaay ximbaarsan oo tacbaan ah malaay hada intuu leeyahay ma taqaana ka malaay waa dhaaf magac kale loo bixinaa 50 kilo inta ku wada sawir inoo la galo rabaa war waa daal kuwaay inta sawirka uu la galay nin 70 kilo inta ku hay muxuu tahay war waxa isweydiiyay aniga ayada xumaan iga ahayn nin Hargeysa ka yimada malaayga canshuur ka qaaday ka war aniga ayadoo qabiil iyo dacwo ay qabaan ma cabsadee adigu baxmar Hargeysa tagay balaa ma soo qaadi kartaa dadka Hargeysa degan malaagooda iyo filinkooda ma geli kartaa waxa la yaaba annaga war waxaan Soomaali waa isdishay qabiil lagu kala tagay ama bahasha qabiilkeeda lagu kala joogo ama si sharaf loo Soomaalinimo loo imaado Puntland boosaasad dekadeeda oo kaalay bad kale idinka ilaabay wasiirka
maaliyadda hadda idin sheegay isagu wasiirka maaliyadda dekedaha Boosaaso iyo Kismaayo iyo shaqadiisa ma aha wasiiradan kan amniga Boosaaso iyo shaqadiisa ma aha waxaan xamar leeyahay dawladda Muqdisho waa dawladda wasiirka maaliyadda carra taga wakas Boosaaso catago dekada Boosaaso dhaqaalaha ka soo xaroodo ha keeno dekada Kismaayo dhaqaalaha ka imaado ha keeno burca ha tago boora ma tago ka sax ma tagi karo adaa lagu xamaasha adaa lagu qarxiya adaa dhac laga soo doonta adaa lagu kufsada adaa lagu xooga adaa lagu dilaa adaa been lagu sheega adaa nabad in lagu soo korqora adaa cuntada la cuna adaa canshuurta war wax walba adi waaye okay waxaan ku wacdinooy nin waan lamihi ma ila fahamsantahay oo anna miska aamusa qodiidam ka aamusa dhinacayga aniga ka aamus kara af waa leeyahay mise waxaan farmaajo ugu horeeyo qashinka waa iska xaqnaa anaga run marabda hadaa Muqdishona berigi hogaamiye kooxeedyadii ayaan nabad haysan berigi hogaamiye kooxeedyadii ayaan war xataa hadda fiiri mucjisada ku haysataa iska badaa inuu nin islaam intuu dhulkaaga imaad cashuur ka qaado cashuur waxaada boobo oo ku kontaroolo oo malaaygaada daba galo oo bariiskaaga daba galo oo degmadaada daba iska daaye iska daa taas iska badaa dhulna la marooyaa wiil bay daba ka yimid ama mid baladweyne ka yimid ayaa wiil xamar ku dhashay intuu imaado madax ku dhufanaa bush kuwii xamar ku dhashan oo fiirsanaya dadku inay sixriin fiir yaa dilay laba naadish inta ku baxeen inta saas ma aan jirna anaga dad noocaas ma aan jir adiga bay daba tagay wax dilo ka sax hore laga soo adiga habar gidri abgaalka iyo bursada bax arbay daba tag Kismaayo tag adoo wax dilna hotelka lagu soo galaa ku wax dilo halkaas ka imaadane adoo u jeeday ka taga dadku waa difference inay fahantii isku daya come on dadka ma waalaya iyaga maxaa ka qaldan dadka Muqdisho degan war aniga waxaan awoodaa inaan dartiin la ii dilo ana runtii idin sheegaa wallahi billahi tallah tan hadaa ka hadli waay maxaan ka hadlaa marka waay majidkan ku dhacaa bas ma ida darashil ma ku dhintaa waay tan hadaa ku dhiman waay difference aniga warkaan dhahooyo dad badan oo gobolada ka imaada way ka caroonayaan laakiin aniga waji kama lihi dadkaas aniga yada waji ka leeyahay 3 milyan iyo bar Muqdisho ka imaada iga badan waji aan kuwaas ka waayay qof aan ka rabo malaha haddaan ku sheegaa waxa dadkayga waji ugu raadsaayana ma ahan qabiil kale ku dila ma aha dad kale dila ma ahan isdifaac wa xaqba u leeyahay haddaan taas dhii waayo nacas ka liita kuwa gobolada ka imaada nabad in loo soo qoro kuwaas ka liita aniga dadkayga ma oranayo qabiil baatiin qabiil kale ku duulo ilaahay afkayga kama soo saara iyagana ilaahay jidkaas ma tuso tubtas xun ilaahay ka dhowr laakiin dadkayga waa la sixray ama xoolaha loo qalo ama bad ha loo galo ama bisad ha loo gediyo ama kab ha loo foorariyo wax uun baa lagu sameeyay dadkayga believe me dadka aqaane markaan ka soo tagay dadka war aniga waxaan xamar ka soo tagay iyadoo baabuur 10ka fiiri 9 saac ama 3 habeenimo wallahi intii wax garata ama intii xamar ka imaada oge 3 habeenimo hadii ay la dilo qof nool ma aha hadii ay la dilo 3 habeenimo oo aan soo wada kacno ee dhulka yaala meedkiisa qof og ma leh hebel dilal dhijir ma xasuusataan taas hadii qof la dilay waa war cad oo banaanka yaala waayba xilligaas aan soo ogeyn dad noocaas u sameysana ahayn anagoo boolis iyo nabad sugid qabina keeni jirnay baawur hadii la reer hebel dhacay garaash hebel ay geesteen la dhijir hadda odagaada wax garadkii aabaha iyo hooyada lagu agdila asal leeda wax dila ma aqaan dawlad qasaba lagu keenaa oo cashuurta ka qaadanaysa amni ku sugi karin qarax kugu sii badinaysa nabad in nolol korkaada laga leeyahay adna waxa leedahay nabad iyo nolol amnigaada sugo hadii loo ma sugan kartid nin baa korkaaga imaanay madaxa ka qabsanayo Muqdisho waxaaba leeyahay dadka Muqdisho degan waaba baadiba marka aan waxa kuwa gobolada degan oo nabad iyo nolol fila Soomaaliya ku jiro waxa ku leeyahay dadkeena dadka fiican mala booso bal hadda wiilka Muqdisho degan ku dhashay dhibkan ka sheekeynay oo hadana nabad iyo nolol si aaminsan soo kama liita cawaanka gobolka imaado marka kan xoolo kala ma ahano marka dadka xoolayn dad xoolo ma ku cayn kartaa أنا وأوجاي وركي ضد بدن مقنعنايو ضد كهدف كي وجدوين كجار كالرين مقدشو أنا هدف كي وهدف كي موادبا هدف كي موادبا قد بدي ذو وادبا لكن لا أم سد حتى عوضات تبليغية مقدشو جوكتا أنا قلت أشرف إياه قبل إيه فيلم أنت أنا شقدي ما قبل هذا واد الكيجا إلى هي أمني بوح هالسيو إلى هي ضد كون عارف ما دي عمر هالسيو
kuwayga laakiin dhibano hal rabaa in laga hadlo dekadooda canshuura laga qaadaa garoonkooda canshuura laga fiiri waxa lagu dira mataqaa dilka amaan la'aanta dhaca kufsiga boobka waxaa inta la qaadaa goboladan la sii geeyaa loo qeybiyaa ma la socota saas adii bas ma ogidin gobolada maamul kasta waa loo qeybiyaa iyagu dekada waa leeyihiin airport waa leeyihiin canshuuro waa soo galaan laakiin kaaga dekada xamar weyna laga qaadaa gobolada dalka dhan loo qeybiyaa qofka hadla ma aragteen okay maamul aa samaysana dildho aamusan wali taabid muxuu ku baxay maamul aa samaysana okay hadda ku sheegaa sababta marka dad badan waxay weydiiyaan maamul gobolka banaadir maxaa lagu sameyn lahayaa hadda ku sheegaa haddii la sameeyo maamul gobolka banaadir haddii loo sameeyo oo dadka banaadir golaha deegaanku maamul soo samaystaan ay doortaan hadda asaad dekadii airportka maamulanayo madaxweyne wax lama jiro adigu laguma ogola marka dekadii airportka inaad maamulato marka iska ilaaw ciidan qaasoo lahaana maamulka saa lahaana nin deegaanka laga soo doortaa jowhar iyo beledweyne iyo ceel dheer iyo boosaaso iyo qardhe iyo kismaayo geenayo hantidiis ma geenayo waa in lagu taliyaa weligaa inaad gumaysi ku jirtid waay ama midna madaxa laga haysanaa mid caseeyo noqonaa ama buraashle midna qaraxa lagu dilaa midna wuu isqarxinaa adiga lee dadka muqdisho dhibkaas anaga lee qabna marka fariinteeda oo marba qayb usoo baxdo waxaa idiin rajeynaa inaad ku cibar qaadataan oo aad fahamtaan oo su-aal isweydiisaan adigu intaad baxdid fiiri dowladdan dadka taageersan example aan ka siinaa wiilka abgaalka ah ama kan habar gidirtay kan kale aha wallaha ama wixii hawiye ah oo xamar jooga ma dhihi karaan dowladdan way xuntaa wiilashaas gobolada ka yimaada ayaa ku xiray adiga oo ku dhahay dowladid iyo qabiilisa tahay laakiin adiga intaad tacaabud maanta dowladdan way xuntaa ma dhihi kartay waliba dambiile waalana tahay waliba dambi kuma sinid nin waalana tahay صح وايد dadka deegaanka waa inay aayahoodii danahoodii hadafkooda gartaan adigu garo markaa gaaraysa hadafkaaga wassalaamu calaykum